maanta muuqaalkeenu waxa ku saabsanaan doona sida aad ula degi lahayd WhatsApp GB ku soo dhawaada muuqaalkeena hadaba. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada saaxiibayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo anigu Khal Cabdiraxmaan. muuqaalkeenan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah sida aad ula degi lahayd applicationka WhatsApp GB. Sidaad ogtihiin applicationka WhatsApp GB kuma jiro Play Store-ka, sidaa darteed asxaab fara badan ayaa jirta oo badanaa commentiyada igu soo weydiisay sida loola dego applicationka WhatsApp GB. Si aan uga jawaabo su'aashaas maanta muuqaalkeenan waxa ku saabsanaan doonaa kaliya saad ula degi lahayd applicationka WhatsApp GB si fudud. insha Allah dhowr dariiq ayaan ku tusi doonaa aad ula degi karta applicationka. sidaa darteed ku soo dhawaada muuqaalkeena oo dhammaystiran hadaba. soo dhawaada mar kale saaxiibayaal. ugu horreyntii aynu ka bilowno waa maxay horta GB WhatsApp. GB WhatsApp waxa weeyaan modified version ama WhatsApp-ka caadiga ah ee iska leedahay shirkadda Facebook oo wax laga bedelay. inaad fahantaan firaya sababta aad uga heli weyday Play Store-kuna waxa weeyaan WhatsApp GB-gu ma aha application-ka dhabta ah ee shirkaddu ay iska leedahay, mana aha official version-ka ee waa mid ay dad sidooda wax uga bedeleen. sababtaas ayaan markaa aad uga heli weyday GB WhatsApp-ka Play Store-ka. marka GB WhatsApp-kuna wuxuu kaga duwan yahay WhatsApp-ka kale, waxa uu dheeryahay features fara badan oo aanu lahayn WhatsApp-ka caadiga ah ee iska leedahay shirkadda Facebook. dhanka privacy-ga haddaynu nimaadno ama amniga, WhatsApp GB-ga ma aha mid la hubo oo maray shirkadda Facebook, balse siday sheegeen ama ay ku andacoonayaan developerada sameeyay application-kan WhatsApp GB-gu waxay leeyihiin waxaanu isticmaalaynaa hab ka fiicanba WhatsApp-ka caadiga ah kana amnisan dhanka privacy-ga. haddaba hadal iyo dhammaan aynu u galno sidaad ula soo degi karto WhatsApp GB. ugu horreyntii waxaan soo furan doonaa Play Store si aynu uga eegno inuu ku jiro application-ku iyo in kale. markaad soo furato application-ka Play Store waxaad ku qortaa halkan GB WhatsApp si aynu u hubino, kadibna waxaad raacdaa search. intaa kadib waxaad halkan ka aragtaa inaanu ku soo saarayn wax natiijo ah, balse haddii aad raacdo muuqaalkan ilaa dhammaadka waxaan ku fahansiin doonaa laba hab oo ula degi karto WhatsApp GB si fudud oo dhib yar. aynu ka soo baxno haddaba Play Store-ka. habka koobaad ee ula degi karto WhatsApp GB waxa weeyaan adiga oo yimaada browser-kaaga Chrome-ka ama aad meeshaad wax kala degto. marka anigu waxaan iman doonaa Chrome-ka. waa kan. markaad sidaa u timaado application-ka Chrome, halkan search ku qoran tahay ku dhufo, kadibna halkan waxaad ku qortaa GB WhatsApp. hadda inta ku qorto kaliya waa dhan tahay, dad download iyo wax sii raacaysa kalena sidoo kale waa isku mid. waxaan ku dhufan doonaa search ama go, hadba sidii adiga ku soo baxday aad ku dhufan doontaa. waan baari doonaa WhatsApp GB. halkan sare wax ku soo dhigay waxyaabo fara badan, iska dhaaf. linkiga ugu horeeya waxaad ka heli kartaa application-ka WhatsApp GB ka saxda ah. sidoo kale haddaad hoos u socoto waxaad ka heli kartaa application-kii iyo website fara badan oo soo dhigay. aynu ku dhufanno bal linkiga ugu sarreeya si aynu ula degno. waxa weeyaan WhatsApp GB bishan June aynu ku jirno ayaa la soo saaray. waana kii official-ka ahaa ay soo saareen dadka developerska. website-ku sidan ayuu yaalaa. hadda halkan wuxuu ku leeyahay information fara badan ku soo dhigayaa latest version iyo macluumaad kale ku saabsan WhatsApp GB. hoos u bax ilaa aad ka gaarayso halkan. si aad ula degto haddaba WhatsApp GB waxaad ku dhufataa kaliya meesha ay ku qoran tahay calaamadan cas ee ku qoran tahay download GB WhatsApp APK. suginta uu wareegayo kadib waxa uu ku soo furayaa tab cusub ama wajahaad cusub oo hore. waxa ku sharaxaya application-ka magaciisa, Android version-ka 4.3 wixii ka sareeya version-ku yahay kii ugu dambeeyay inta la degtay qof 6 milyan baa la degay. size-kiisa ama storage-ka inta uu ka qaadanayo 34 MB iyo macluumaad kale fara badan ku saaraya. update-ka wuxuu soo baxay hal maalin ka hor. hoos u bax ilaa aad ka imanayso hadda halkan markaad timaado saddexdan calaamadood waxa weeyaan saddexdaba waad kala degi kartaa dad u baahan tahay. si aad ula degno hadda waxaan ku dhufan doonaa anagu calaamada casaanka ee server 2 ku qoran tahay.
kadib wuxuu ku saaraya xayeysiis si aad ula degto haddaba waxaad ku dhufataa calaamadda khaladka xayeysiiska si uu kaaga baxo marka hadda uu inoo soo degayaa hadda wuxuu ku leeyahay do you want to download GB WhatsApp ma rabtay la degto download marka download tiraado waxaad timaadaa calaamadan saddexdan calaamadood kadibna waxaad ka sii degtaa downloadska si aad u aragto waxyaabaad la soo degayso iyo intuu yahay applicationku iska sug markaa inta uu ku soo degaya hadda aniga waa kan igu socod aad aragto aniga haddan uu digay waa kan hadda horena waa igu jiray mid hore haddii se adiga uu ku dig waad ka sugi doontaa waxaad ku dhufataa si aad la soo degto applicationka aad la soo degtay halkan sidoo kale haddii aad halkan rabin waxaad ka dhigi kartaa waxaad iman kartaa my failiska teleefankaaga si aad ula degto markaad my failis timaado waxaad ka sii tagtaa downloads meesha ku qoran tahay markaad downloads tagto kadib waxaad ku dhufataa applicationka la soo degtay tusaale ahaan aniga waa kan hadda waxaan la soo degay maalin hore ku dhufa applicationka si aad la soo degto haddaba waa kan hadda soo baxay si aad ula degto haddaba waxaad ku dhufataa meesha ku qoran tahay install marka waad aragtaa hadda installing buu leeyahay uu install garaynaya iska suginta uu ku install garaynayo kadib markuu ku dago waxaad taadaa dhan sidoo kale waxaad oran kartaa open saad soo furto hadda dhan ayaan oran doonaa qaabkaas waa qaabka koobaad idula degi karto qaabkaas inaad fahanteen ma filaya qaabka labaad aynu nimaano qaabka labaad waxaad kala degi kartaa oo aan ku soo dhigay applicationka Telegram channelkeena si aad ula degto halkaas si aad ugu biirto kaliya waxa laga rabaa inaad soo furato descriptionka muuqaalka ama sidoo kale waxaad ka heli kartaa commentiga ugu sareeya ayaan biinka ugu dhihi doonaa marka ama commentiga sare imow ama descriptionka imow labada hab waa isku mid tusaale ahaan descriptionka inaad halkan soo furto aad ku dhufanaysaa linkiga halkan ku yaala ku qoran tahay marka macluumaad fara badan bartan yaala waxay ku qoran tahay Telegram channel ayaad ku dhufanaysaa marka Telegram channel ku dhufato linkiga ku dhufato buluuga suginta uu wareegay linkigaas wuxuu keenayaa Chrome-kaaga ama browser-ka ay ku keenayaa kadibna nuxus ku saaray sidan marka sidan ku soo saaro wuxuu ku leeyahay hadda ku biir channel-ka wuxuu ku sheegay channel-ka magaciisa iyo waxyaabahaas wax ku dhufataa ka qoran tahay view in Telegram ugu horeyntiisa intaad ku biirin horta waxa laga rabaa inuu ku sameeysan yahay Telegram haddaad leedahay account Telegram waxaad ku dhufataa ka qoran tahay view in Telegram markaad view in Telegram ku dhufato wuxuu keenayaa marka Telegram channel-keeni markuu keeno Telegram channel-ka ugu horeynta waxaad taada join si aad ugu biirto kadib markaad join taado halkan waxaad ka aragtaa meel ku qoran tahay GB WhatsApp halkaas ayaad kala degi kartaa sidoo kale dad u baahan tahay si aad u degtana waxaad ku dhufanaysaa kaliya meesha ku qoran tahay calaamadda download-ka ama flash hoos u fororta si aad u degto application-ka iska sug markaa inta uu ku install gareysmayo app-ku daba markaad labada habka doonto raacadigu marka la soo degto application si aad u sameeysato kaliya wax fudud hadaad qoso tab loo sameystana mala waxaan fireynaa ka heli karto muuqaal halka hoose waxaad timaadaa qaybta application-ka telefonka kadibna waxaad ku dhufataa WhatsApp si aad u sameysata mala wax iska fudud waa sidii hore WhatsApp-ka horun buu lamid yahay ugu horeyntii waxaad taada allow si aad ugu ogolaato inuu sawiraantaada waxyaabahaas ku shaqeeyo sidoo kale waxaad taada agree and continue wuxuu ku leeyahay waxyaabahan ma ogoshahay agree kadib halkan numberkaaga gelin doontaa kulay inta waad fahmaysaa ma filayaa waan iska dhaafi doonaa waxaan ku saarayo waxaad taada close iska wuxuu ku sharaxayaa versionada waxyaabahaas close baad ka oran doontaa sidaas ay horta ku samaysatay marka hore WhatsApp GB-gaagii waxaad aragtay in waxyaabo fara badan kala duwan yihiin WhatsApp-ka caadiga settings ku dhufo horta saad ugu ogolaataa application ku shaqeyn kara teleefankaaga in kale oo permission ingiriiska u baahan yahay oo ogolaato waxaad timaadaa permission meesha ku qoran tahay kadib waxaad u ogolaataa permission isku baahnaa waan u ogolaanay kadib inaad fahantaan firaya habka fudud ayaad u degi kartaa GB WhatsApp halkaas inoo joog doona muuqaalkeenu maanta waxaan filayaa inaad fahanteen haddaba haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh kanalka haddii aad wax su'aalaha qabto waxaad igala soo xiriiri kartaa Instagram account-iga linkiga waxaad ka helaysaa description-ka waa anigoo Khalid Cabdiraxmaan iyo halkan waa Somali Tricks oo idin leh stay creative. Assalamu calaykum.
yourself sleep.